kufsiga goldogob ka dhacay kullaga yaxyaxa iyo wax aan la kurbooda iyo karaahiye iiga weyn xalay kowdiyo barkii kol aan hurdadii ka kacay waxaa kasha iiga yeel xiskana ku kabaalana dhacdadii kadafkiyo dhibkee wiilashu ay kula kaceen gabadhay kelida u heleen kolkay oynaysay iyo kaxdiya iga daaydi iyo walaal iga kaaftan iyo kariimkiin ka cabsad iyo kalaamkay tiri ayaa naftayda kulaalay oo kolbaan heedhee is iri kuwani kama ayna dhalan soomaalida kala baxdee kabtay naga soo galeen nin raga oo kaamiliyo kaskiya maankii fayow haweenka ma kufiya ee waa uu koolkooliya dhacdooyinka la xiriira kufsiga waxay dalkeena Soomaaliya ka naqdeen wax iska caadiye waxaana xaqiiqo jirta oo la soo ogaada ah in bil walba ay dhacaan in ka badan 50 dhacdo oo la xiriira kufsiga 24 saac oo kamid ah saacadaha maalin walba waxaad maqlaysaa waxa la kufsaday in Soomaaliyeed dhacdooyinkan kufsiga ka dhaca dalkeena Soomaaliya waxaa la soo ogaaday in ay maalgeliyeen hay'adaha shisheeye iyo shakhsiyaad Soomaali ah hay'adaha shisheeye ayaa doonayo in ay dalkeena ka dhigaan sida dalalkooda oo kale hay'adahan loo soo wakiishay dhibaataynta dalkeena iyo dumarkeena Soomaaliyeed ayaa waxay xaruntooda weyn ku taala magaalada Muqdisho gaar ahaan Xalane xarunta Xalane waa dalka madax banaan dalka Soomaaliya markii aad u fiiriso falalka ay ku dhaqmayaan waana meesha oo kaliya ay dawacadu ku cunta dumarkeena Soomaaliyeed waxaan taas ula jeedaa waxay gabaad u tahay gafuur weyn kasto oo gabdhaheena gardareysato una gacan qaado laga soo bilaabo sanadkii 2012 ilaa iyo haatan la joogo wuxuu noqday kufsigu wax iska caadiya xalay ay taariikhdu ku beegnaaday 12 bisha koobaad 2021 waxaa duleedka magaalada Muqdisho kaam ku yaalo lagu kufsaday hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Xaawa Cabdikariin kadib markii ay diblay ku hubaysan dariiska dowladda federaalka Soomaaliya ay gurigeeda kala bixeen hooyadan ayaa dhacdadan uga hadashay warbaahinada waxayna sheegtay dhibaatada ka soo gaartay dhacdooyinka la xiriira kufsiga waxay dalkeena Soomaaliya ka naqdeen wax iska caadiye waxaana xaqiiqo jirta oo la soo ogaada ah in bil walba ay dhacaan in ka badan 50 dhacdo oo la xiriira kufsiga 24 saac oo kamid ah saacadaha maalin dhanka kale sayga ay haweeneydan u dhacday ayaa asigana goobjoog oo ahay dhacdadan wuxuuna ka hadalay sidii ay wax u dhaceen
albaabkii saadira soo furay waa soo fadhiistay gabartiin waa soo fadhiistay kolku waa maqashay nimankiina nin hebel ma dhaxkar waxaan jira tuuti wajigana ma asbaru nin hebel oo maan dhaxkarna ma jiro makasno ronat waxaan wadadayna oo xatay banaankaana u yaali waxaan ku qoyana afar nimood hal shafeer yana saddex ciidan oo tuutaysan saddex ciidan gabadha ilbahan kii kale mid maqashay la meesha oo wiilkan taagan meesha taagnay wiil kale waa ilaa arso dhaga ana ku tusa booska ku sokay maxay ku sheegay maxay ku sheegay wali had ma tii sheegan ma jirta gabarta banaan jeesan waa ku dhacdadan ma ahan dhacdadii ugu horeyso oo ka dhacda dalkeena Soomaaliya balse waxaa ka horreeyay dhacdooyin sidan